Assalaamu calaykum. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa qaar ka mid ah astaamaha la yaabka leh ee ay leeyihiin dadka wax curiya. Caadooyinka ugu yaabka badan ee ay raacaan dadka hal-abuurka leh si ay wax curintoodu u xoojiyaan. Fadlan inta aanan guda galin subscribe saar YouTube-kan, gabaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba aynu soo gelino aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. Caadooyinka ugu yaabka badan ee raacaan dadka hal-abuurka leh si ay wax curintoodu u xoojiyaan. Shaki kuma jirto in dadka qorayaasha ay wax alifa ay sameeyaan baaritaano joogto ah si ay u helaan habka ugu wanaagsan ay ku heli karaan afkaar ama waxyaalo kale ay ku bidhaansadaan alifaadooda si ay u soo saaraan riwaayado, sheekooyin, buugaag si qoto dheer loo bisleeyo oo dadku ay ka helaan. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa ilaa 7 qodob oo qaar ka mid ah astaamaha la yaabka leh ay leeyihiin dadka wax curiya kuwooda dunida ugu sareeya. Waxaa ka mid ah in sariirta la isku kala bixiyo. Qorayaasha qaar waxay aaminsan yihiin in marka ay sariirta isku kala bixinayaan ay fikrado muhiim ay ka helaan. Waxaana ka mid ah qoraaga reer Mareykan Mark Twain iyo alifaaga riwaayadaha reer Ingiriis George Orwell iyo qoraaga Woody Allen. Dhammaan waxaa lagu yaqaanaa in marka ay sariirta isku kala bixinayaan ay warqado badan buuxiyaan oo afkaartooda kusoo burqato. Waxaa ka mid ah istaaga si ka duwan qaabkii hore in taagnida wax lagu qoro waa shay ay ku caan yihiin dadka wax curiya qaarkood ay ka mid yihiin Ernest Hemingway, Charles Dickens iyo gabadha qoraaga ah Ingiriiska ugu caansan Virginia Woolf. Astaamaha waxaa ka mid ah in wax lagu qoro warqado yar oo go'an. Vladimir Nabokov, qoraaga Ruushka ah ee qoray riwaayadii Lolita ee caanka ahayd, howlihiisa oo dhan waxa uu ku alifay warqadaha yaryar. Warqadaha qaar waxay ugu jireen barkintiisa hoosteeda si uu wax ugu qorto marka ay fikrad kusoo dhalato. Astaamaha waxaa ka mid ah hab madaxu uu hooseeyo mijaha ay kor jiraan. Qoraaga reer Mareykan caanka ah ee Dan Brown waxa uu madaxa iyo mijaha la kala rogo uu ku heli jiray afkaar cusub iyadoo riwaayadda Definition Day uu sidaa kusoo alifay. Astaamaha waxaa ka mid ah derbiga oo laga soo horjeesto. Qoraaga reer Mareykan Francine Browne waxay u aragtaa in xalka ugu naajixsan ee qoraaga uu ku heli karo fikrado ay tahay in derbiga ka soo horjeesto iyo hindhihiisu ku qabto. Astaamaha sidoo kaleetana waxaa ka mid ah in dood la sameeyo. Qoraaga dhanka masraxa ku caanbaxay Aaron Sorkin wareysiyo uu bixiyay ayuu ku sheegay in sankiisa uu jabay markii uu sameynayay doodo dumar hortood xilli uu buuq ka dhashay ayaa dhibaatadaasi ka soo gaartay. Astaamaha la yaabka leh ee dadka wax curiya ee ugu dambeysana waxay tahay qoraaga reer Faranse ee la yiraahdo Honoré de Balzac ayaa qoraaladiisii muhiimka ahaa ee ku sameeyay maalintii wuxuu cabi jiray 50 koob oo qaxwo ah. Sidoo kale filosofarkii reer Faransa mufakirkii Voltaire wuxuu uu maalinkii cabi jiray isagana 40 koob oo qaxwo ah si uu afkaartiisa muhiimka ah u diiwaan geliyo. Haddaba kuwan waxay ku dhan caadooyinka ugu la yaabka badan ee ay raacaan dadka hal-abuurka leh ee si ay wax curintoodu u xaqiijiyaan ama ay u xoojiyaan. Fadlan haddii aad ka heshay subscribe saar, gambaleelkana furo si aad noola socoto barnaamij walba ee aynu soo gelinayno YouTube-keena.